toos waa inaad aadaa iskuulka. Carruurtan Kenya waxay isku diyaarinayaan iskoolka. Waqtiga rasmiga ah ee iskoolka hoose uu bilowdaa waa 8 subaxnimo. Waa inaan toosiyaa xilli hore sababtoo ah iskuulka ayaa ku adkaystay inay fasalka joogaan. Wiilku waa 5 jir, gabadhuna 11 jir. Labaduba waa inay galaaska joogaan 6:15. Waa dhib in hurdada laga kiciyaa gaar ahaan kan yar. Hurdo fiican ma uusan helin. Shaqo layli ah oo badan ayaa laga yaabaa in la siiyay uuna dhameeyay xilli dambo. Xilliyada qaarne waa inaad awood u adeegsataa. Safarku wuxuu qaataa 10 ilaa 15 daqiiqo xilliyada mugdiga ah. Tani ma aha wax fiican. Marmar wuu diidaa inuu tooso. Marka uu iskuulka tagana wuxuu bilaabaa inuu ooyo. Waana inaan gurigiisa ga soo laabanaa markaa. Wuxuu sheegayaa inuu daalan yahay, hurdana uu rabo. Aad ayay isaga ugu adag tahay. Ma fahmin. Haddii adigoo qof weyna ay tahay inaad jiifato 8 saacadood, haddana si aan joogto ahayn ayaad u maareyn kartaa habnololeedkaaga. Maxaynu ugu ogolaan weynay ilmahaas inay seexdaan xitaa 5 saacadood? Waxaynu ka dhigaynaa matoor shaqo. Tani waxay ka dhacaysaa iskoolada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa jira iskuullo ay tahay in carruurtu wax badan bartaan subaxnimadii, taasi oo aan loo eegaynin caafimaadkooda. Waxay ka doonayaan inay u tartamaan carruurtu buundooyin fiican. Iskuulladu waxay doonayaan in ilmuhu uu iskuulka joogo xilli horeba. Isbeddelka ayaa lagu eedeeyay masaafada dheer ee iskoolka iyo guryaha iyo cadaadiska helitaanka buundooyin wanaagsan. Waxaynu weydiinay wasaaradda waxbarashada inay jawaab ka bixiso. Iskuullada ku qasbaya ardayda inay iskuulka aadaan xilli hore si sharciga ka baxsan ayay u shaqaynayaan. Waa sharci darro, tallaabo ka dhan ah iskuulladaas ayaana la qaadi doonaa. Abbaar 6 fiidnimo, ardayda ayaa ku soo laabatay guriga iyagoo ka yimid iskoolka. Waxaa laga rabaa inay dhammaystiraan casharka shaqo guri ka hor inta aanay seexan. Aad ay u daalan yihiin. Waxaan isleeyahay haddii ay toosaan 6 ama 6:15 inay ka fiicnaan lahayd, ayna weli wax baran kari lahaayeen. qasab ma aha inay xilli hore toosaan, laakiin macallimiinta ayaa ku adkeysanaya inay xilli hore kacaan. Tusaale ahaan, kan yar wuxuu ku leeyahay macallinka ayaa igu yiri waa inaan galaaska joogaa